بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد خطبة ما أنت وحيكون سابسنيدي موضوع هراء أن مارت هراء الصبارت باللوني أو آفات اللسان dhibaatooyinka carabku uu leeyahay oo dadka u soo jiido aafooyinka carabka waxa koow ka ah oo ugu horeeyo kuwa ugu waaweyn kamida beenta alkadib waa dhibaatooyinka carabku keeno waxyaabaha ugu waaweyn waa shar oo idil meesha ay isugu timaado beentu xumaan oo idil waxaa fura u ah been xumaan aan been wadanu ma socoto sadaraadeed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu nooga digay beenta dadka beenta sheega kuwa ay yihiin iyo sifaadka ay leeyihiin waa noo sheegay bilkitaab wa calaa lisaani nabiyi sala allahu alayh wasalam qur'aanka waa noogula caddeeyey sunnada nabigana waa noogula caddeeyey beentu dhibaatooyinka ay leedahay annaga laakiin maanta in badan oo naga mid ah waxaa laga yaabaa inaysan wax weyn beentu agtooda ka ahayn waxaa laga yaabaa inay u arkaan wax markaas jaanis lagu maro wax lagu moodo laakiin waxaa xaqiiqo ah beentu dadka waxay ka ridaa bahol halaagoo idilay u soo jiidaa nabigaynu sala allahu alayh wasalam wuxuu noo sheegay beentu inay dadka geysan naarta wuxuu leeyahay nabiga sala allahu alayh wasallam xadiis saxiixa oo bukhaari iyo muslim soo saareen cabdullah ibn mascuud laga wariyey radia allahu canhu calaykum bisidqi waxaa waajib idinku ow dhaha runta run sheega fa ina asidqa yahdii ila albir runtu dadka waxay u hanuunisaa biriga wanaag biriga waxaa la yidhaha wax kasta oo daaco ah oo ilaahay loogu dhowaado biri ayaa la yidhaha waa wanaag iyo samafal runtu dadka waxay u hanuunisaa biriga samafalka iyo wanaagga wa ina albira yahdii ila aljanna wanaagguna dadka wuxuu u hanuuniyaa jannada ku geynaa wa iyaakum walkadib waxaan idinkaga digayaa hawdhaha nabiga sala allahu alayh wasalam beenaan idinkaga digaa fa ina alkadiba yahdii ila alfujuur beentu dadka waxay u hanuunisaa faajirnimo qofka beenlowga waa faajir waa shaydaan waa sharle waa mufsid xumaanoo idil beenlowga ayay isugu timaadaa khiyaanada aabbaheed waa been dhagarta aabbaheed waa been tuuganimo aabbaheed waa been zina aabbaheed waa been xumaanoo idil waxaa dhalay beenta ayaa dhasho sababtoo qofku markuu waxaasoo dhan jarinaayo been ayuu u maraa waxaan jirin oo u maraa waddo aan jirin oo u qaadaa beenta ayaa waxay tahay gaalnimada beentaa waxay u tahay fure gaalnimada beentaa fure u ah ilaahay qur-aankiisa muxuu leeyahay innamaa yaftari alkadiba aladiina laa yu'minuuna biaayaati illaah beenta waxaa abuurto oo la yimaado kuwa aan ilaahay rumaysnayn beenin waa beentu saa maaha ilaahay jiritaankiisoo la beeniyo rasuul la soo dirayoo la beeniyo qur-aanka la soo dejiyoo la beeniyo beenta ayaa xumaan oo dhan soo keento beenta ayaa keento markaasuu nabigu wuxuu leeyahay wa ina alkadiba yahdii ila alfujuur beentu dadka waxay u hanuunisaa faajirnimo wa ina alfujuura yahdii ila annaar faajirnimadu dadka waxay u hanuunisaa naarta say u wado marka ugu dambaysa wuxuu tegayaa naarta ayuu tegayaa beentu ma noqoto tilmaamaha dadka mu'miniinta ah qof mu'mina tilmaantiisu been iyo khiyaano ma noqoto nabigayna sala allahu alayh wasalam waxaa laga wariyey waxau dhahay yudbacu almu'minu cala alkhilaali kulliha qofka mu'minkaa tilmaamo oo dhan waa loo yeelaa tilmaamaha waa loo yeelaa mu'min fulaya waa jiryaa mu'min bakhiila waa jiryaa mu'min caajislooba wuu jiryaa mu'min oo zaaniya wuu jiryaa tilmaamahaasoo idil waa ku dhacyaa qofka mu'minkaa
إلا الكذب والخيانة وده النبي صلى الله عليه وسلم بين يا خيانة سكم دعيو بين يا خيانة قف مؤمنة تلمانتي سيادة بيعديسة ما نغطه مع أن هذا إيمان كيسان ناقص وايه قف كم مؤمن كاهي بنت الشيء إيمان كيسو ناقص وايه مدى ما يسترنو فاسقني ما كجرته نفاقا كجره صوتها النبي صلى الله عليه وسلم منافقين تمركوا تلمامها محودها علامات كمنافقة محاكمة إذا حدث كذب هدوشة كي منافق بينه وشيء منافق لماذا أبا بينه مكت منافق لماذا جود أي أبا بينه سببته بينته حال هذا كذبك مخالفة القول للواقع هذا الك هي سيدة جرتو كلا دونادو هذا الكلا شيء هي سيدة جرتو مركي كلا دونادان بين أيها الشيء قف قابا ودير يا داترا بين وا يا لأنه واقعي وخلاف شيء قف كان وقابا ياي أدينا ودير يا تاجنتهاي بين الشيء ده مخالفة الحال قوله للواقع إنه هذا الخلافه واقع أجره بنته وحاقفك النبي صلى الله عليه وسلم كنت المامي إنه بين شيء كلي وحاكفلا وحوصل مغلينه وشيء بس قف وركو شيء واسي شيء قف كلا كو شيء واسي شيء قف كلا كو شيء واسي شيء ما هو بنيست هلاس بينكو كفلا سببته هذا واحدا هو بنين أو قف كوسا شيء يو إذا أسكسي شيء تابع كم قف هذا بينكو كاني كرتمرك قياس بقول قف هذا ما تدور كو كنتو إمساق قف هذا رونكو شيكتي مقياسي كرت هذا مقياسي كرتي سادردت بنته مثل الشيء وحقوق مد إلهي لك الشيء سبحانه وتعالى إلهي وحوصنا هنا واي هلا يرادو وبين الشيء مد قوين ومد إلهي أوليه هي أرى لعنة الله على الكاذبين لعنة إلهي كاذبين تاكل عدو إلهي عد عبادي سلوا ذاك تمجرته عد كون كان لا أبور تمجرته عد وحلنا ولا يسي مجرته عد وحلد الشاهي مجرته هدات ترى واجرتها كور عبادتي ساساس كله ولا لا يا متكدها كور المشرقة يا إلهي بينك الشيء إلهي أولاد مدلين السجن الله مدلين متكدها يا ملائكة ودلي أما النبي عيسى ودلي متكدها إلهي بينك الشيء وبين الشيء مد أقوين وحاكو حكته نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أو وحوسن شيء واشيء يلا يراه نبينا صلى الله عليه وسلم حوده من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قف كان يباني الشيء أسيقه وليبه وكسايو ولا حوسن نبي محمد دهنو نبي يا يريليه ولا حونا السماء النبي يا سمايي قف كاسي فليتبوأ مقعده من النار نار تمشوا كفدي سنة يهود ديار قريبه dad badan nabi maxamed ku been abuurtay wala xuusan keenin waa keenyadahay oo been ka sheegay falyataba maqcadahu min naar waciidkaas ayaa u yaalo sidoo kale tabeenta waxa kamida oo maanta agtayna caadi ka ah shahadatu zuur waa been bani aadamka dhexdiisa muaamalaadkiisa bani aadamka بنت لغشة مدة أقوين وأمارت شهادة زورك النبي قال صلى الله عليه وسلم وكدقي وحو نرشة النبي شهادة زورك شهادة بنت وحبك الدرين إيا الشرك إلهي وحلا وداجيا إن إساسيين مركز النبي وحو الله صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة زوري بالإشراك بالله شهادة زورك وحال لسمي شرك أيال لسمي هداد دونتين أغريوا لهاي فاجتنبوا قول الزور واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور كدقاقة يا أوثانتا وحا إلهي غير كيس العابد أيه كل وحكسته وإلهي غير كيس العابد وثن واي أما قف بني آدم هنقضو أما الشيطان هنقضو أما الجيد هنقضو أما الدقح هنقضو وحو البو وإلهي كسو هريو العابداهي وثن واي إيه كدقاقة اللي يريه
shahaadatu zuur labadaas Allah isdaba dhigay subxaanahu wa tacaala labadaas ayuu Allah isdaba dhigay meeshaas carabiyada dadka yaqaana way yaqaanaan waawdu waxay keentaa xukunka oo la wadaagsado ayay keenaysaa macnaheedu waxaa waaye in shirkiga laga dhaqaaqo iyo in laga dhaqaaqo shahaadatu zuurka isku si ayaa lagaaga rabaa macnaheedu ma ahan shirkigaas sii darane asiga muga horaa laga tago kan haddana lagu xajiyo waa siman yihiin isku si inaa uga tagtaa lagaa rabaa annaga maanta maxaa jira laakiin adduunyada maanta maxaa ka jiro shahaadatu zuurka waaba xirfad dadaaba ku shaqaystaba nimaa bariiskiisu jiraa ka ku jiraaba yaah ogaaw waa tilmaan asagoo u kasbaday asaa shaqaystay markii hore la dhalaayo waxaa la dhalaa asigoo saadiqa runlow asigoo aamin ahaa la dhalay laakiin asigaa xirfad ka dhigtay wuu barayey wuu ku dadaalay waad aragteenoo dadka qareennada la yidhaahdo way kala xirfad badan yihiin nimaa aftahan ku ah nimaa aad u yaqaano nimaa qof islaameed dilay ayuu beri ka dhigaa yaah nimaa nin waxuu samaynaa waxba aan gelinin oo xataa aan maaragtay cijo qalloocinin wuxuu leeyahay qof dhan oo kow ka siiya asaa runtiisu inta lagu xukumaa maanta waad aragteen wax layn kaga sheekaynaa maahan in badan wax maanta maxkamadaha ka jira waad aragteen yaah shahaadatu zuur markaasaa qof beriyaha dembi dusha laga saara qof dembi galayne waa laga celinaa markaasaa dad kale xuquuqdooda lagu baabi'inayaa waxaa laga yaabaa ninkan uu ku fikiraayo miskiinkan ayaan anigu hadda badbaadinooyaa saasuu uu sheegaa markuu ka hadlaayo miskiinkaanaan badbaadinooyaa laakiin ogaaw miskiinkaanu dembigii ou galay ee uu mid kale ka galay ayaa dabooshay kii kalead marka ku tumatay xaqiisii shahaadatu zuur xirfad lagu shaqaysta maahan waa dembi weyn waa kabiira min alkabaa'ir sida culimmadu ay ku tilmaameen dembiyada waaweyn oo la galo ayuu nabigeenu ku tiriyey sala allah alay wasalam markaasaa weliba nabiga sala allah alay wasalam inta kale markuu sheegaayey si wuxuu u sheega degan nabigeenna sala allah alay wasalam asigoo saxaabadiisa dhex fadhiyo ayuu maalin wuxuu yidhi war ma inkaga warramaa dembiyada la gala kuwa ugu waaweyn markaasay dheen noo sheeg rasuulka ilaahayow markaasuu yidhi ashirku billaah wa cuquuqu lwaalidayn shirkiga oo ilaahay wax lala wadaajinaayo iyo waalidka oo lagu caasiyo ayaa dembiyada waaweyn oo la gala ah way isku xigaan macnaha markaasuu nabiga xusulkaa dhulka u yidhi wuu soo fadhiistay markaasuu wuxuu ku celcelishay alaa wa shahaadatu zuur wa qowlu zuur war shahaadatu zuurka war hadalka beenta war iska jira soo ugu celcelinaayey saxaabadiyaa u damqata nabiga sala allahu alayh wasalam markaasaa niyada waxay iska dhaheen leytahu sakat alla muu iska aamuso nabigu waa ku daalay soo ugu celcelinaayey ayuu ku daalaye muu iska aamuso ayay saxaabadii niyada iska dhaheen idan maanta wixii nebi maxamed uu meeshaas gaarsiiyey oo been ah oo khiyaano ah oo brobagaan ah oo ummad lagula tumahaayo nimayba shaqadiisa tahay oo noloshiisa ku maareeyey oo ilmihiisa ku koriyo oo xaaskiisa ku biilo oo waalidkiisa ku biilo wuxuu ku leeyahay mu'minaan ahay aniga ilaahayna qur-aanka muxuu ku leeyahay innamaa yaftari alkadiba aladiina laa yu'minuuna fiiri iimaankiyaa laga anfiyey asigana wuxuu rabiyaa inuu yidhaha mu'minaan ahay berri hadduu dukada masaajidkaa la geeyaha hadduu dhinto masaajidkaa la geeyaha janaasaa lagu duka rabaa imaa shiikh ugu weynaa loo dhiibaa sheekh belo dadka salaad janaasada ka bixiyaa la leeyahay yaah ilaahay baa iimaanka ka anfinaayo markaasuu rabaa asugu inuu sheegto mu'minaan ahay annaga ka anfi mayno waxaan leenahay waa mu'minun faasiqun haddana ne waa mu'min faasiqa oo aan u qalmin mu'minnimadiisa ninkaasu waxaa la mida dadka majaajiliistayaasha ah oo dadka been u sheega si ay uga qosliyaan nabigeenna sala allahu alayh wasalam wuxuu dhahay maalin asigoo dadka la hadlaayo ayuu yidhi weylun liladii yuxadith liyadxaka naas fayakdibu liyadxaka naas hoog wuxuu u sugnaaday u dhahay hoog wuxuu u sugnaaday midka sheekaynaayo ee been sheegaayo si ou dadka ugu qoslaan in loo qoslow rabiyaa bis beenuu sheegaa marka in loo qoslow rabiyaa markaasuu nabigu wuxuu yidhi weylun lahu uma weylun lahu uma weylun lahu yuu dhaha nabiga sal slam hoogaa u sugnaaday haddana hoogaa u sugnaaday
haddana hooga u sugnaaday midkaas mid ba'ay oo balaaya ku dhacda waaye ninka dadka ka qoslisii daraaddeed warka u sheego majaajiliistayaasha daday maanta xirfadooda tahayba dadayba xirfadooda tahay inay dadka ka qosliyaan bis xirfadooda waayba xirfad u naqamayso waxa waaye xaraam u bay dalanayaan nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxa uu dhahay kullu lahmin nabata bil harami fannaru awla bih hilib kasto oo xaraam ku baxay macna lagu koriyay fannaru awla bih naarta ku haboon kaas naarta ayaa ku haboon saadaradeed waxaan isaga digaynaa beenta waa wixii nabigeena nooga digay oo ilaahay noogu soo dhiibay oo yiri dadka uga dig nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay dac ma yaribuka ila ma la yaribuka waxaad ka shakisa ka tag ha sheegin ila ma la yaribuka waxaana ku shaki galihaynin adiga waxaadan ka shakayna iska badane waxaad ka shakay maxaad ku fale markaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam fa inna sidqa runtu duma'ninatun wa hasiloni runtu wa hasiloni wa inna al-kadhiba riba beentuna waa shaki iyo isku naxnax ay beentu tahay waxa isaga digaynaa marka beenta qof walba hadalkaada run ka dhig ilaahay wuxuu ku amray inaad muuminiinta ka mid noqoto oo saadiqiinta waliba markaas Allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladheena aamanu firi kuwa Allah nabi rumeeyano ittaqullaha ilaahay ka baqa wa kunu ma'a saadiqiin kuwa runta sheega la jira kuwa runta sheegaya waa nabiyada ilaahay anbiyadii oo soo dirsaday ee soo maartay soo saari rusushii oo soo diray iyo washuhada iyo wasaalihiin iyo muuminiinta kale kuwa ayaa run looshina ayaga runta sheegan iimaankooda ay run ka sheegayaan islaamnimadooda ay run ka sheegayaan hadalkooda ay run ka sheegayaan ficilkooda ay run ka sheegayaan amalkooda idil ayaa run ah kuwaas la jira muuminka nabigeena wuxuu noo sheegay sida Abdullah ibn Umar laga wariyay imaam Tirmidhi soo saaray hadduu been sheego qofka muuminka malaga oo la jiro oo xifdinaayo laana qofka waxa loo diray soo malag xifdiyo malag xifdiya loo diray oo ilaalinaayo sida ayada quraanka ku cadeeday wa inna alaykum la xaafidin lama dhihina malagaas xaafidka ah qofka muuminka markuu been sheego waa ka dhaqaaqa wuu ka dhaqaaqa min natni ma jaa bihi waxa uu la yimiday urka iyo qurmoonka ka soo baxaya darteed ayuu uga dhaqaaqa malagu inta dul qaada waayo beentu waa uraysa way xun tahay way fal xun tahay way ur badan tahay waa duliyo idil malagu ma rabi marka waa ka dhaqaaqa geesow ka taga meel geesa ayuu ka roogsanaa markuu beentaas urkeedu ka ba oo run ka daba mariyo ayuu malagu u soo laabanaa markaas qiyaas walax malagu ka cararay oo malaka ag tagiyay adiga maxay ku galaan waxba ma ku galaan runta ayaa badbaado ku jirta waxa laga yaabaa qofku inuu runta u arko inay badbaado isaga jirto in kasto jirta meelo oo xoogaa qofka muuminka hadduu beenta xoogaas uu sababto ilaahay u cafinaayo nabigeena sallallahu alayhi wasallam saddex mar ayuu sheegay inay beentu macquul tahay saddex mar ayay beentu macquul tahay bis saddexdaas wixii ka baxsani saddexdaas wixii ka baxsan been ilaahay ma ka aqbalaayo laakiin saddexdaas waxa koow ka ah nin oo been u sheegayo inuu dad kala maslaxeeyo laba qof oo haysato maslaxo ka shaqeynaa ninkan uu tagaa warniyo hebel asku dhacsanadeen hebel wuxuu u soo faray inuu heshiis diyaar u yahay inuu kula heshiyo iscafisiin oo diyaar u yahay niyo arintaas ay u aragtaa waa been loo ma soo sheegin asaar rab inuu meeshaas masraxa ka bilaabo waa ogolaa markuu yiraahdo adna meesha isi jooga ku soo naqaahay hebelan soo wada markee kii kale uu tagaa hebelow ninkaasi saas waaye inuu heshiisiin oo diyaar u yahay ka waranee diyaar muta labada qof oo sukeena maslaxa waaye maslaxadaas oo kaleeto waa la aqbalaa maslaxadaas oo kale waa la aqbalaa beenta waxaa la mid oo kaleeto ninka xaaskiisa ku sirsiranaayo xoogaa xaaska iska kacsan oo iska maarta xoogaa iska maarta axwaalaysan oo ku buuqayso ayuu rabiyaa xoogaa inuu ku dajiyo saasaan ku yeela uma yeeli rabiyo laakiin saasaan ku yeela uu leeyahay waayahay dhahay moogta waa aqbale ayadan waa la ogol yahay markii hadhow damto oo xanaaq gudeeyo wuxuu leeyahay nin waxaas aan ma sameey kariye inaa markii hore baad kugu dajihay leeyahay haye ka raal noqo dhaha marka
ولا أقول يا كاسنا مصلحة وايه لأنه عدنا كل سنة يسبنتاس وحال من الدين إله الدمار تمر وقف كبد بهذا نفتي سلسلة الدين إله درت الله يستو وقف كاس واحد قرض أوصل لهين وعدال در الوهايو إنه بينك الشيء إنه بينك الشيء يقف كاس معهن أقف كان مريسين ما بعهن الدوير هذا أو بين شيء ولا أقبل أيضا لكن بينو سك كلامكم أنفعيسو ما نكوس برناه يسو ما نمرتاهي حتى بالفيري بنت الماء دو مشيكرت الماء أديك على شو مشيكرت نبينا صلى الله عليه وسلم مالين مال الماء كميدا أيا وحا كسر بحناك ويريس عنو جدا أو نهيسو كالا ولا حان كسيها نبي قوي مغلي مركو عنو جي مدي أيو نبي حول هاي وحما سير ربط عنو جا مركز يترها تمران سير ربا ها تمر أيان سير ربا مركز وحده لو لم تعديه حدادا سيلهين وده تمرتاس حدادا تمرتاس سيلهين لكتبت لك كذبة بين البغور الهاي عنو قال أدو يري سواي حدادا تمرتاس سيلهين أو أنت قلت مقو كوي ماذا أنت يفدي سلا دي لهذي لكتبت لك كذبة بين البغور الهاي وده بين أي البغور الهاي ناك بين شكتان غالي هذي وقال نفت هذا حتى أنا بين كشكت القوم وقالوا نبينا صلى الله عليه وسلم عائشة مركي لو سو قلبيي oo Aisha guurkeedi markii loo guurinayay ayaa islaamo soo wadeen islaamihii markay guriga keeneen ayuu nabigu caana u keenay markaas ay dheen rasuulka Ilaahay waa bisay dheen mar ma dhiganahay la nuriiduhu caana mar rabnay dheen markaas uu nabigu xiri sallallahu alayhi wasallam wajigoodana xoogaa naageen baahi jirto u dareemay oo xoogaa dad aan waxba cunin ay haayeen markaas uu dhahay la tajma'na ala anfusikunna kadiban waju'an war naftiina been iyo gaajaha isugu darin u dhahay way gaajoonta nafti been waa sheegaysiino mar rabna dhahaysiin he isugu darin u dhahay anaha aba marka waxa waaye nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu markaas man tasahala bil qalil min al kadhib sahula alayhi kathiruhu qofki wax yar iska sahlado beena xoogaa wax yar waaye haddaad ku moodee iska sheeg isiraado sahula alayhi kathiruhu kii badnaaya u sahlanana hadhow beenloob iska naqanaaba caadi beenta iska naqanay marka been yar hataa yaraysan waa weyn taa beeno ha fiirin adiga waliga ay laha yaa beenta aad sheegay xayl eg tahay waxaad fiirisaa ilaahay xaraameyntu ka xaraamay weynkeeda fiiri ha xaqas fiir adiga culimada islaamka ayaa mid kamid ah waxa laga wariyay qiso cajiiba hal xadiis sheekh yaqaan loo sheegay oo san asugu aqoonin hal xadiis oo asugu aqoonin ayaa sheekh yaqaan loo sheegay hal bil oo lugeynay hal bil ayuu u lugeeyay markaas uu soo tilmaansaday markii gurigiisa loo jeedsiiyay ayuu wuxuu u jeeday markuu soo socday ninkii loo soo tilmaamay oo weel faras u taagayo xoogaa faras uu qaba waayay ayuu weel u taagayay weel saas u taagayay faraska marka wuxuu maleynaa weelka inay wax ku jiraan waa naqaanaa xoolaha weel beenaha loo taagaa Soomaali waa naqaanaa yaa Soomaali marka weel u taagayay marka uu yimiday neefkina uu qabayay faraski weelka waa faaruq markaas uu yimiday salaamay wuxuu dhahay hebel adiga miyaa ha kafaani ma ra'aytu yoo marka inta arka igu filan khalaas inta aan arkay ayaa igu filan oo dhawaas kana qayba hal xaba kama baranin hal bilo kale si lugeeyay meesha uu ka soo tagay markaas ay leeyahay xadiidkii aad hebel ka soo baratay sheekh hebel noo akhri markaas uu dhahay laqad ra'aytuhu wa huwa yakdhibu ala farasihi waxaan arkay faraskiisa soo been u sheegayo wa alimtu annahu lam yakun yakdhibu li farasihi wa yatruku al-kadhiba ala rasuulillahi waxaan ogaaday uu dhahay markaan arkaasoo faraska been u sheegayo intuu faras been u sheego inuu dadka been u sheego ma deeyeen oo xadiidka rasuulka been ka sheegiyo ma deynayo sababtoo xayawaan been u sheega nin bahaan sira maxuu dadka dhowra waa ka daran yahay marka wuxuu ninkaas nin bahaan sira waaye nin wax laga baran karo ma aanu dhahay waa ka soo naqay idan dadkii wanaagsan ay beenta ma hasi ka joogeen annaga laakiin waxa agteen laga yaabaa badan caadi inay ka tahay been caadi ma ahan dadka xirfadda ka dhigtay oo aanba majaajilaystayaala aanba qareenaahuna ilaahay uga baqaano
ما أنت قيام ولا ويدودون. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكر الله على حسن استماعكم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا كريم. اللهم صل على نبينا محمد وسلم.